haweenweynaha jaaliyadda reer Somaliland ee ku dhaqan waddanka Djibouti ayaa waxay taageero buuxda u muujiyeen booqashada uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ku marayo waddanka Mareykanka waxaana xaflad lagu taageerayo lagu qabtay caasimadda Djibouti. haldoorka dumarka haweenka ee jaaliyadda reer Somaliland ee ku dhaqan waddanka Djibouti ayaa hadallo taageera oo lagu taageerayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi booqashada uu ku joogo waddanka Mareykanka ka soo jeediyay xafladaasi lagu qabtay caasimadda Djibouti. baardagii madaxweynaha maanta Mareykanka tagay ee maanta itiraafkii ugu muhiimsanaa in Ilaahay na siiyo aynu maanta afka u joogno insha Allah bidmillaahi kariim وصورة اعترافكم سنسامي سنة ما أنت قاعد بين واركينا إلهينا وحن كبرنا إلهينا ينور ما يدمان تيمبا صباح يا وتقوم كي اعترافكي يا وحصاي فيفيا إففالو وناجيو فرحة يا فافانا كترنو وحنو مرينا يا إنا نوسو هالجني حرية دولكنا وحنو مرينا يا إنا نوسو هالجني ديمقراطية دا وحنو مرينا يا إنا نوسو هالجني وناجا وحنو مرينا يا إنا نوسو هالجني شار وناجا وراء تشجع نسوه الشجع نسوة عليتا من مرة بعد وحن سلام أن أدرياه لما جمهورية دجبوتي وهريو إسماعيل عمر جيل مدحوينا غرنكا iyo marwadiisa marwe qadre maxamuud xayd oo la'aantood aynaan dalka waxba ku qaban karneen ma waxa salaamaya jamhuuriyadda Somaliland oo u horeeyo madaxweynaha qaranka madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku xigeenka Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici waxaan halkan hambaliyo iyo salaan aan la soo korin iyo bogaadin ugu marinaya hawada madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland oo halka ku tagay waddanka Mareykanka isaga iyo wafdidii ballaaneyd uu hogaaminayay ee qiimaha iyo qaayaha badnayd xafladii halka wararkii faraha badnaa ee waraysiga ahaa ee uu halka ka jeediyay ee aan waxba dhaafin ee aan ugu hambalyeynayno khudbadihiisii qaaliga ahaa iyo ictiraafka iyo gobonnimada iyo sida loogu soo dhaweeyay magaalada Washington aad iyo aad baan u garab taaganahay waanaanu ku hambalyeynayna waxaan leenahay madaxweyne hambaliyo guul iyo gobonnimaad kala timi waxaana sidoo kale xafladaasi lagu soo bandhigay heesaha wadaniga ee u gaarka Jamhuuriyadda Somaliland. geesta kale waxaa gabayo ka soo jeediyay qaar ka mid ah haweenka jaaliyadda reer Somaliland ee ku dhaqan waddanka Djibouti xafladaasi intii ay socotay. habeenkii xalay miyuu hana soo noqdaa ninkii la dhigay miyuu dib u talaabsadaa tilmaan weeye miyay tala dhexdeena taa waxaan xamaray kuri ani xogtaydan hoo xumaan mooye anigu xiisa kuma qabo oo aanu ma ilaawin xumiyad geysateen markaad miga kicisayaad wiqday maatidii madaaficdii sidii mayayga roob ahayd xuyaa wuxuu ku dhalay xasuusteediiga ma bin Maxamed Jaamac Waale warbaahinta qaranka Somaliland Djibouti.